Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalahayga qaaliga ah meel walbaa dunida ka joogtaan waxaan in leeyahay salaan kal ilaab ka soo gaada ayaan hawada iin soo marinayaa waa umuumicaad mar walbo in la jeclaato waxyaabaha oo cusub oo lasoo gudboonaada ayaan jeclahay inaan iin soo gudbiyo taas ay tahayn waxaa keenay idinka sharafta ay sharaftaan mar walba dhiirigelinta ay soo siisaan koomentidayaashiina ay soo siisaan taas darteed ayaan anigana aan jeclaa waxyaabaha igu soo kordho maasha allah inaan ila soo wadaago ayaan ribaa arrin yara waxaa dhacday laba wiil oo walaalaha wiilkii yar ka mid 28 jir waay kan weyna waa 42 sano waay laakiin maasha allah midkii yaraa ilaa wuxuu siiyey karti uu ku shaqaysto kan weynna wuxuu iska sugi jiray shaqo uu iska raadsan jiray shaqada hadda adduunka la joogo shaqada waxay noqotay adeeg ay noqotay way adag tahay qof walba qofkiisuu shaqo siinayaa hadda awalka shaqo yaa shaqaa banaan hebelaa la gelinaya ahaan jirtay qofkaana u baahanaa la dhihi jiray hadda laakiin qof walba shaqo ka banaan wuxuu jecel yahay qofkiisa xataa baadiyaha jiro inuu kasoo wado uu geliyo bedelka qofkan uu heli lahayo ayaa ka dhacday adduunka hadda joogo waxay noqotay siisi kuwaa siisi soo xilligasaa loo yaqaana hadda qof walba qofkiisa inuu siiyo ayuu rabaa marka waxaan qisadaas inoo tahay laba wiil oo walaalo ah waa midka yarka uu shaqaysan jiray dukaamo uu shaqo ka helay maasha allah dukaamihiisa uga shaqaysanayo wuxuu bilaabay ganacsi alaabahan banaan la wareejiyo bagaashka la wareejinayo bagaashkiisa uu wareejinayo maasha allah ilaah wuxuu u calfay lacag u calfay wuu iska dhaafay haddana wuxuu bedeshtay maasha allah xoolahan la safrinayo gaarisata muqdisho loo safrinayo ayuu galay maasha allah alxamdulilah haddana ilaahay hanti ugu sii daray maasha allah hantidiisi wuu ku dheefsaday maasha allah nairobi u imaaday maqaaxiduu ka furtay maqaaxidii maasha allah walaalkiis ka weynaa oo shaqa la-ayd ahaa meelaha iska joogay ayuu u yeeray manager ugu dhigay maqaaxidii walaalkiis kii weynaa ayaa haayay gacanta ku haayay maqaaxidaas ayadoo furan haddana maqaaxid kale uu kasii daba furtay ilaa hantida uu ballaariyey haddana mid kale uu sii furtay saddexaad waayo wuxuu ku dhahay ilaaha anigana wuxuu dhahay arsaaqdaada anaa ballanqaaday adna ha jiifanin oortaada raraa lagu dhahe waayo haddaa jiifta ilaaha wax isiinaa dhaada inta fadhisid ilaaha irsaaqdaada meeluu kugu daray alxamdulilah marka waxaa la rabaa adigan irsaaqdaada inaad aad dhinacaada ka raasatid ilaahanuu kula garab galayaa laakiin ilaaha waxa isiinanaa dhaada aad jiifatid ma ahan marka walaalahayga ilaaha marka wiilkii managerkiis u ahaa kan haddana wuxuu sameeyey ilaahay ugu daray waqti maqaaxidi uu baxay shidaalaha maaragtay oo wadamaha loo safrinayo tuzambi nairobi tuzambi ah uu wax ku darsaday maasha allah hanti maasha allah cunug wuxuu noqday cunug yaroo hantiila ah uu noqday waayo xeer wuxuu gaaray naagihiisii shaatigu iska bedela camal iskaga bedelo uu iskaga faano wiilkii weynaa oo walaalkiis ahana uu 40 iyo waxba oo yahay uuna guursanin ilaaha wuxuu xukmay aabihiis maanta camal waxyaabuu yaruu soo aruursaday markuu isku soo aruursaday aabbohay naagan doonin aan guursan rabaa oo naagna goormee gaartaa leh bismillaahi raxmaan xoolaha leedaaba lama heline goormee naag iyo afaarahaasa ii keenaysaa uuba taagan yaho adduunkan waxaa la dhahay aabow horanaa loo dhahay soomaali waxay dhahdo waxbaa ka jira maasha allah waxay dhaheen aabow aniga iyo walaalkeyga kee baa weyn markii la dhahay wuxuu dhahay labadiina ninkii hanti leh ayaa weyn waayo ninkii yaraa oo maalin beryaha haddaba naag sanadkiiba 100 naag iska guursanayaba lama dhihi ma gaarin ninkii 42 sano jiri ayaa la dhahay maba gaarine goormeeba naag aa soo raadinaysaa hanti xoolaa leedaba lama arkine war naga tagaaldheniyow soco oo walba ninka hebel ahaay ayaaba shaqo hugeeye shaqo adiga aa niidaa ka keensata ma ahayn oo shaqo adi aa keensata aad ku shaqaysa ma ahane hebel unbaa ku dhahay ka shaqeey meeshaas ayaa shaqo hadda aa ku heshay ee haddana bedelkaa wax qabsan lehed oo xoolo aad tacban lahayd yah miya hadda naag iyo afaarahaas ii keenaysaa war yaa soco idhaafaa la dheh marka kii yaraana sanadkii 100 naag inuu guursadaa laga yaabaa marka waxaa la dhahay marka walaaleyga anigi xoolaha ani walaalkey ninki midkee weyn wuxuu dhahay soomaali maamaadeed marka waxbaa ka jir waayo waxyaabo badan Soomaali maama hadda waan soo arkay
maasha allah. Qisada marka meeshaas ay nooga eg tahay. Qiso labaada waxay jirtaa laba gabdhood ay saaxiibo ay ahaayeen. Marka ani iyo walaalkii laba gabdhood ay saaxiibo ay ahaayeen. Labada gabdhood oo saaxiibo ahaa laba walaal oo isla dhalatay ayaa kala jeclaatay. midka wuxuu haystay lacag uu haystay, midna lacag muusan haysanin. Kii lacagtaan haysanin waxaa ku dhacday gabaraan saaxiibo ani aan isku fiicanna ayaa isguursadeen. Kii kalena waa kaasaa. Marka waxaa la leeyahay maanta jecel lacag leh jecel aan lacag lahayn keebaa awood leh. Marka waxaan dhihi lahaa aniga xaggayga ah jaceylka lacagta leh wuxuu taraa ma lahan. Gabadhii saaxiibasay u ahaayeen jaceylka lacagta lahaa ay heshay xeer saaxiibadeeda xataa meel cidla ay uga tagto aysan caawinin. Waayo xataa markii la arko laga faano waxay uga faanaysaa ninaan lacag lahayn ay guursatay maahan ay jeclaatay. Laakiin ayadana nin lacag leh ay jeclaatay ay guursatay maahan maadaama xataa labadii wiil ay isla dhashteen. Marka waxay asxaabteena dhan waxay qadarinayeen naagta lacagta leh ninkeeda gurigeeda la tagaa. Gabdhii anay saaxiibeyga ahay dhan gurigeeday tagayaan waa la soo booqanayaa. Maasha allah tanna nin maskiin ah qabo. Wallaahi nolol maalmeedkooda ayaaba qiil ku jiro. Laakiin wax danaynayo assalaamu calaykum dhahayo aanba jirinbo. Gabadhii marka wallaahi bilaah ninkii ay iska guursatay aan waxba haysanin alxamdulillah ilaahay awlaadaa ka sii tiila ilaahay awlaadu ka sii maasha allah laba gabdhood ila wiil u haysaa. Laakiin reerkoodana ma rabaan reerkiisna ma rabaan waayo laba lacag lahayn isguursatay maahano. Reerkooda gabadhii waa la nacay ninkii dartiisa loo nacay. Asagana wiilkii reerkiisi naagtaasaa loo nacay waxba ma haystee goortuu naag noo keenaa la dhahay. Saa darteed unbaa loo nacay. Tii lacagta aan lahayn tii lacagta lahaa ninkeeda ilaahay awlaad ma ka siinin. Laakiin lacag ay haysteen guriga wiilka cidooda waa laga qadarinayay. Ma fahanteen cid wiilka waa laga qadarinaa cidoodana waa la qadarinaa ma imaadid safar walba waxay gelaysaa. Safar walbaba safaray gelaysaa waxay u sii socotaa mandheeray u sii socotaa. Isbuuci bishiiba 2 jeer la baxaa waa la socdaa naag lacag leh waay cidooda kaal arkay si loo danaynayo ma malaysan kartid. Si loo jecel yahay ma malaysan kartid waayo nin lacag leh qabo. Marka adduunka hadda la joogo dhibaato badan oo lacagta ku xisaabsan ayaan aragnay. Marka walaalahayga qaaliga waxaan leeyahay dhibaatooyinka oo reeraha dadka ku nacaan ilaaha naga dulqaado ayaan leenahay. Intii dhibaataysan dhibka Allaha ka qaado. Intii ilma aan haysanin ilma la'aayda lagu nacay ilmaha Allaha siiyo. Intii xoolo la'aay lagu nacana xoolo degdeg ah maal degdeg ah Allaha siiyo. Waxaan leeyahay gabdhaheena Soomaali maasha allah waxaan anaga aan ku fiicanahay uga fiicanahay waxaa waay horta kartiyaan leenahay. Waayo odageena hadduu lacag haysanin aan ilma aan dhalno ilmaheen waxaan wax ku cunsiin lahayn kama fikir yacni ilmahaasayta managa dhibaato waan anaga unbaa rifaadi karno anaga unbaa na soo geli karta da'a waayo stress badana iska jiro waa u rafaadi karnaa ilmaheen waa u jabi karnaa waa u dheefsan karnaa ilmaheen waa korsanaa maasha allah. Adduunka hadda horumar uu gaaray wax ilma aan ku korin karna ilaahayna unoo fududeeyay alxamdulillah shukrillah ilaaha mahad leh. Maanta daama inaan tagin oo qoriina soo gurno aan gadgadayninba masana biyo inaan soo dhaamino aan gadgadaynin taasa ilaaha ugu mahdina. Waxyaabo badan lagu shaqaysan karaa jirto maasha allah. Marka walaalahayga waxaan leeyahay reerkaada cidooda cid taajiriin hadday tahay gabdhaheena Soomaaliyeed aan la hadlayaa hadday nimanka reerkooda taajiriin ay yihiin oo adigana maskiin aad tahay murugta stresski waxaasayd xaaliska dhaafo dhaxdaada xiro maasha allah. Waxyaabo badan oo laga shaqaysta ayaa jirto. Waxaan leeyahay gabdhaheena fadhigaan ka kacno aan shaqaysano ciddii duruuf dad ku nacdo iyo ciddii
kugu jeclaato ayagay u taashaa maasha allah ilmaheena qaabkaan ku korsan lahayn unbaa ka fikireynaa aan kufna aan dhacno anagay noo taashaa taasi maasha allah horta ilmaheen waan korsanaa iskuul waan ka baxsanaa farxad waan gelinaa alxamdulillah shukrillah kartidaas horta gabdheena soomaalisa unaan kartidaas aan leenahay maasha allah ajaanibta hadday stress ay galaan suna is cabsiyaan mise xarganay korkaas ay ku suraan ayay isdilaan laakiin alxamdulillah gabdhaheen soomaaliya wasaan u nahna waa gabdho sharaf leh oo karti leh ciyaalkooda haddii lagu furay haddii laga dhintay haddii oo odayga uu naga shiido waan korsanaa kartidaasaan leenahay taasa ilaah ugu mahad celinaa waxaan leenahay aan sii dadaalno fadhiga aan ka kacno aan isgarab qabano adduunka hadda la joogo hal maxaa la dhahay halkoo far fool ma dhaqdo marka aan isgacan qabanno aan dadaalno aan ilmaha la korsado